واحد بدل انت المره عصب بيتم هاي ساعه حبد بقول حاول الى انا غوجي اقل عرس انا عايز كل شيء بس واه فبدوس مره ما قحنا اجلس كسعت اجلس عاد ستوصل بلا وتولى dadku filisana waxay kala carartay ma soo لو صبرنا ما كنا نصرف هورا يلا اطلع ندفع للشيء انا وكل حامد بورقه الى كم دبادي مدفع قدع قرونا قدع علي ما حاجه مجاريه تيدلني فرح ما صوب قربان اسكو دعيسه hadda waa ma dhacayaan hoogaa waa isku nasanaa marana karto qof kale aga ar xil meeshan ku xil aqeer Abdullah Karla wadi sidaas ogtihiin taariikh 24 bishii labaad hadda la soo dhaafay waxaan la kulannay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta annagoo arintii nabadgelyada
dhibkii macallimiinta soo gaaray intaa ka hadlayna ayaan u tagnay waxaan isku afgarannay dadkii gobolka iyo arrin walba oo daawo ku imaaday inaan dabagalno annagoo tii daba raacayna waxaan fursad u helnay inaan la kulanno madaxweynihii Soomaaliya annagoo kala daahayna maadaama aan xuduud wada leenahay amni darrana aad dhulka ka jira sideen isu kaashan karnaa oo ammaan ku siin karnaa colna nagama dhaxeeyo Kenya iyo Soomaaliya colka ma dhaxeeyo maalin kasta diyaarada ama aragtay inta ka tagaan oo xagga ka imaadaan intii aan u tagnay waxaana kala soo kulannay shay muhiim ah oo aaminsannahay haddii annaga oo dhan aan gacmaha iskugu geyna in labadii waddanba ay ku badbaadayaan marka intaasaan kala soo kulannay waxaan kale oo la sheegayo oo inta ka dhunteen inta ka baxeen leeyahay waxba kama jiraan waana u warrami doonaa dadweynaha annaga oo doonayna inaan Gaarisa imaanno taariikh laxan inta ka baxayna oon Wajeer tagna oon Mandheera tagna oon shacabka dadweynaha la hadalno inta waa maasha horta awalan waxaan rabaa inaan idin sheego sida aad baraha bulshada ku arkayseen xildhibaanada lama xirin xabisna lama geynin arinta aan u tagnay Soomaaliya waa arin madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ka barqaway 2 asbuuc ka hore waan la fariisanay dhibaatada ka jirto gobolka inaan xal u raadino meel allaale iyo meeshayna la gasho Soomaaliya waa dawlad daris aan nahay waa dawlad aan daris wadaagnahay wax col nagama dhaxeeyo wixii dan oo naga gasho waan u aadeynaa taa waxaan rabaa inaad la socotaan waxa kale oo jirta xuduud baan la leenahay anaga Soomaaliya xuduudda iyada ee nabadeeda iyo arrimaheeda wanaaga waxa laga gaari karaa labada wadan Kenya iyo Soomaaliya oo shaqeeyaan arinta marka aan u tagna anaga waa arin aan aaminsanahay in ay xal keeni karto ama xal aan ka gaari karno dhibaatada hadda naga haysato gobolka khaasatan arrimahan maxay ahayd argagixisada dhibaatada hal ay nagu keeneen macallimiinta oo carareen waxa oo dhan waa wax aan madaxweyne Farmaajo kala soo daahnay haddana 3 asbuuc ka bacdi gobolka anaga markaan ku wareegno waxaan ku laaban doonaa madaxweyne Uhuru Kenyatta inaan haddana arrimii xagga aan kala soo kulanay iyo wixii tilaabo aan qaadnay aan la wadaagno marka waxaad ogaataan xildhibaan la xiray ma jirto wadanka xorriyad waaye annaga intaan ogsonahay wax Soomaaliya naga reebi kara inaan aadnay maysan jirin mar hore la aadi jiray haddana waan aadnay hadda ka dambana waan aadi doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo marka safarkeena oo Soomaaliya ku aadayna kii u dambeeyay ma noqon doono marka waxaad ogaataan in howlaha aan ku jirno ay yihiin arrimaha gobolka maslaxadiisa ku jiraan marka waxyaalaha propagandada oo social media iyo baraha bulshada lagu qorayo oo ummadda lagu kicinayo oo wadanka laga kicinayo xasaasi wax macna ay ku fadhiyaan malahan aad baad mahadsantiin assalaamu calaykum walaalayaal horta waxaan rabaa inaan ka hadlo meesha waxa isku kan keenay sida la sheegay anagoo 12 xildhibaan oo ka kala socda Gaaris Wajeer iyo Mandheera yaan socdaal gaaban ku tagnay magaalada Muqdisho waxaana u tagnay arrimaha ka jiraan amni darrada ka jirto gobolkeena ama North Eastern Region ama Gaaris Wajeer Mandheera wad ogtihiin maanta 3 macallin oo deegaanka u dhalan ka soo carreen iskuulada way xiran yihiin dhibaatooyin fara badan baan soo gaadhay annaga markaan la kulmay madaxweynaha Kenya wuxuu nagu yiri waxaan rabaa adinkoo mas'uuliyiinta inaad dadkiina nala soo hadashaan wax alla wixii amniga lagu soo karna aad ka kamil kartaan annaga markaan aan tashanay waxaan ogaanay shabaab saldhigyada meesha nagu soo diray Soomaaliya tahay dawladda Soomaaliyeedna waxaan maadaama isku dadna aan isku luqadna aan nahay anagoo Kenyaan ah waxaan u doonay tala iyo wax isweydiin iyo isweydaarsi runtii shirka aan la qabanay meesha aan tagnay hal mas'uul kaliya la kulan waxaan la kulanay madaxweynaha qaranka Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo haddii la yiri dadka aan la kulan waxba kama jiraan haddii la yiri lacag baa la soo siiyay waxba kama jiraan annaga intaasan u tagnay madaxweynahana qaabilaad fiican baan ka helnay runtiina waan isfahanay hadalka muhiimadiisana waan sheegay amniga Kenya iyo North Eastern haddii la rabo in la sugo waa in dawladda Kenya iyo dawladda federaalka Soomaaliya ay toos wada shaqeeyaan arinta ayada waa arin muqaddis ah mana dhici karto in arinta marnaba laga waco fariinta uu madaxweynaha soo farin waxa weey waxaan jecelahay anagana markasta aan diyaar u nahay inaan la shaqeeyno dawladda Kenya heer federaal iyo dawladdiisa inay wada shaqeeyaan waan ognahay Soomaaliya waxa ka jira goboleysi
laakiin annaga waxaan aaminsannahay gobol iyo waddan sideenoo kale kama wada hadli karaan arrimaha amniga waxaa wada hadli karaan madaxweynaha soomaaliyeed iyo dowladdiisa iyo dowladda kenya oo madaxweynaha uhuru kenyatta uu hogaaminayo arrinta annaga aan ku kalsoon waa arrinta ayada intaasaan socdaalkan u ahaa haddii la yidhi waa nala qabtay nalama qabanin laakiin warka ku jira saxaafadda oo la sheegay oo kaloo waxa keenay in meeshan waxyaalo la weydiiyo waxaa la yidhi nimankaas waxay la kulmeen sirdoonka Soomaaliya lacag baa la soo siiyey waxyaalahaas oo kale annaga run baan sheegnaa qof kale oo la kulmeen ma laha wax lacag oo la soo siiyay ma laha waxaan omaana kicin waxaan u kacno inaan wanaag iyo maartay amniga si loo soo inaan u kacno aad baa u mahadsantiin